الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ولا لها مسلمين تا ميل كستنا قد دعوانا وحنكو السلام يا سلامتا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انت كذب ولا ليال وحاد أكتهين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام maalintii maka laga kaxeeyay madiina tagay alayhi salaatu wasalaam isagoo gurigiisa iyo meel uu jiifsado iyo midna aan ka fikirin waxa ugu horeeya uu bilaabay waxay ahayd masjid inuu raadiyo oo uu dhulkii iibsado saana uu masjidkiisa alayhi salaatu wasalaam u dhiso taas waxay ku tusinaysaa ahamiyadda masaajidu nolosha bulshada muslimiinta ay u leedahay sidaa darteed maanta waxaanu joognaa magaalada Dhadhamane ee caasimada degmada Baabili gobolka Faafan ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaanu joognaa waxaan walaalaheena muslimiinta oo dhan ugu baaqaynaa masjidkaas aad u jeedaan ee bilowga ah ee dadkan saboolka ah maanta ay halkaas soo gaarsiiyeen in aad ka qayb qaadataan akoonadana waad uga jeedaan meesha uu idinku qoran yihiin mid kasta wuxuu karayo inuu ku soo darsado ayaan idinka codsanaynaa aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh